بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال إذا لهانتين بأميل كستو الدنيا الدافئة كجوكتان كلن كله أو حيسله. magacaygu waa Dr. Cabdimajiid Cabdiweli Diirshadowe kana mid ah dhakhaatiirta xanaanada xoolaha Soomaaliyeed kana hawlgala meelo badan buugga daryeel iyo daaqsin ee aad qortay maxaad uga hadlaysaa marka waxyaalaha ugu yaabnaa neefkaas dhimashada la siinayay mid kale oomo ayagoo u qasaya xoolaha cabsiinayaan mid saddexaad oo kale arko waxa weeye aniga iyo bulshada kale ee daawanaysa tubyo kamid ah buugga aad qortay ma noo sharxi kartaa anigu kulliyadda xanaanada xoolaha muddo 9 sano ku soo dhex jira hal maktabada buug xanaanada xoolaha ku qoraya kumaan arag wana baahida weyn oo loo qabo markaan u arkay maxaad falcelin kala kulantay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka iyo dibadiisa gaar ahaan xoolo dhaqatada yani xanuunadii sidoo kale xoolihii cunooyinkii loo beeri lahaa calafkii kala duwanaa xoolaha qaabkii qofku u diyaarsan lahaa haduu beerti haysto sidoo kale ma taqaanaa habkii dhaqashadii qofkii rabo inuu xoolo ku taamaya بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال إذا لهانتين بأميل كستو الدنيا الدافئة كجوكتان كلن كله أو حيسله ما أنت برامجك وحى مرتين أوجو عبد المجيد ديرشدوه أو نين دليرة أو برتي علمي حولها دتكيسة يدلكيسنا أوجو فائدة أو كل حشقية دكتورك أيان كوريسان دونا بوق وقري دوان أو لغو مقعبو دريال يداقسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waa Dr. Cabdimajiid Cabdiweli Diirshadowe kana mid ah dhakhaatiirta xanaanada xoolaha Soomaaliyeed kana hawlgala meelo badan Soomaaliya hadii noqon lahayd maamul goboleedyada aan tago Khaatumo Puntland Soomaali deegaanka ilaa meelo kale oo badan baan ka hawlgalo دكتور buugga daryeel iyo daaqsin ee aad qortay maxaad uga hadlaysaa buugga aan qoray wuxuu ka hadlayaa daryeelka iyo daaqsinka xoolaheena iyadoo aysan horay ma taqaan inta badan isugu jirin in laga qoray buugaag xanaano xoolaad buugani inta badan waxaan focus ka saarayay ama ka hadlayay wuxuu ahaa xoolaheena xanuunada ka jira deegaanadeena habkii lagu daweyn lahaa habkii ma taqaan looga hortagi lahaa sidoo kale qofkii raba inuu xoolo dhaqdo uu haga u noqon lahaa kii xoolo haystayna uu ma taqaanaa hormuud ugu noqon lahaa soo arkaya yani xanuunada badan Soomaalida deegaanada xoolada ku dhaca markaad eegtiin sababkii furuqii jadeecadii ma taqaanaa xanuunkii u yaqaaneen majoogihii sidoo kale ma taqaanaa xanuunada canabar kala keenaya dhukaankii waxyaalahaas oo dhan yani xanuunkii waa maxay yani astaameedee leeyahay maxaa lagu daweyn karaa maxaa loo hortagi karaa taa xanuunada marka ka soo tago buugan 7 cutub ka kooban oo kala ah يعني xanuunadii sidoo kale xoolihii cunooyinkii loo beeri lahaa calafkii kala duwanaa xoolaha qaabkii qofku u diyaarsan lahaa haduu beerti haysto sidoo kale ma taqaanaa habkii dhaqashadii qofkii rabo inuu xoolo ku taamaya inuu dhaqdo habkii ma taqaanaa systemka casriga adduunka hadda loo dhaqdo iyo qaliimadii xoolihii loo sameeyay marka waa buug dhan oo ka hadlaya daryeelka iyo daaqsinka xoolaha maxaa kugu dhaliyay inaad qortid buuggan aad uga hadlaysay daryeelka xoolaha sababta ugu weyn ugu dhalisay waxa markaan arkay Soomaalida inay maanta yihiin dad bulsho xoolo raacata inaan u soo jeestaan bulsho xoolo dhaqata waliba xoolo dhaqata beeraley ay noqdaan xoolahoodina ma taqaanaa ka manaafacaystaan beerihiina ka manaafacaystaan oo yani cunooyinka kala duwan xoolaha loo beeriyo inuu qofkii calaf dawladda intuu ka imaan lahaa inuu isagu beerto galey maxaa looga baahan yahay muxuu maanka looga baahan yahay muxuu martaqaana misaga uga baahan yahay cawska ku haboon oo loo beeri karo xoolo inuu arko qofkii way ugu dhalisay martaqaana in bulshadeena maanta ay wax qabsan karaan uu haga ugu noqdo muddo intee leegay kugu qaadatay cilmi baarista iyo qorista buuggan daryeel iyo daaqsin buuggani waxa ku hawlnaa muddo sanad iyo bara inta ugu yareed kaasoo aan uga hadlayay xanuunkan martaqaana inta badan la tacaamulayay iyo ma taqaanaa xoolaha cunooyinka aan siinayay ama kuwan u beerayay qaybtood baa uga hadlayay iyo habka casriga hadda xoolaha u dhaqdo dadkana u dhaqdaan ku baraarujiyo inay ma taqaanaa ay u guuraan baan uga hadlayay sidaas si la mid ah markaan arkay baahida loo qabo dadkeena inta badan markay soo wacaan maanta oo dhan ma taqaanaa xoolihii ay ka wareystaan sidoo haga ugu noqdo
maanta maktabadaha markaad tagtiin ma arkaysin anigu kulliyadda xanaanada xoolaha muddo 9 sano kusoo dhex jira hal maktabada buug xanaano xoolaad ku qoraya kumaan arag waana baahida weyn oo loo qabo markaan u arkay habka Soomaalidu ay xoolaha u dhaqdaan waa la dhaliilaa waxa la yiraahdaa cilmi iyo aqoon kuma saleysna wax ka yaabiyay oo aad ku aragtay ma jiraan waxa aad ugu naxdin badnaa aan arkay oo isleeyahay waa sababaha ay ugu dhaliyeen dadkeena maanta tirtaan inay wax ka bedelaan xataa anigu buugayga waa wataa marka meelahan tagay reedmiga waa wax u qabtaa shirar yar yar aan dhaho balkaalaya cilmiga ka faa'iideysta taasna u leeyahay wax kala ma marka arka oliyo neef la cabsiinayo iyo hadda koor waxa dhacday nin baa wuxuu soo qaaday neef dhamijo uga dhacday dhogortii dhan buu xiray neefkii markaas oliyo duu soo qaato dusha u mariyay ninkaasi maanta waxa ahay caqabad uga istaxayeen muusan arag mataqaana qof u sheegaya cilmigii ama gaarsiinaya waana sababta baahida markaste amiiga markaan aadi dadka wacyigelin aan ugu sameeyo inay mataqaana maanta dhaqaatiir wadanka soo baxday ay joogto in cilmigii dawooyin loo isticmaalayo xanuunadii sidii ibn aadanku ugu baahan yahay daryeel ayayna xoolaha ugu baahan yihiin markii la helo xoolo caafimaad qabta ba waxa la helaa bulsho caafimaad qabta marka waxyaalaha ugu yaabnaa neefkaas dhimashada la siinayay mid kale oomo ayagoo u qasaya xoolaha cabsiinayaan mid saddexaad oo kale arka waxa weeye yaan shishiida iyo mataqaana maraq digaaga hadii isku daraan waxay ku leeyahay neefkii qooqu ka baaya waa la cabsiinaya waa yaan shishiid iyo maraq digaag neefkii fuuqbax waa ku dhacay waa dhimanaya sababta waxa weeye qalin yar baa jira baraay lagu qabtaa jira producer la yiraahdo laakiin waaqaca bulshadeena waxyaala ay ugu dhaliyeen maanta mataqaana ay gaarsiyo farinteeda aniga iyo bulshada kale ee daawanaysa tubyo kamida buug aqortay ma noo sharxi kartaa faa'iidooyinka waxa kamid ah qofkii reer miyiga maanta ma garan karo ama qofkii xoolaha haysta meeshii xoolihii looga durayay ama dawooyinka laga siinay way ku qorayeen sidoo kale maanta dad badan waxa jira xoolo dhaqata beeraley ah oo xoolihii haysta beertiina haysta laakiin aan garan xoolihiisu wuxuu u abuuro isagana haagu u noqonaya sidoo kale maanta waxa jira dad xoolaha haysta xanuunadii mataqaana la kala garan karin xoolaha hayay inuu calaamadihii neef u muujinayo meesha ku qoran yahay ya xanuunka hadhow dhakhtarka fudud inuu soo ogeysiiyo dhoo saas loo hayaa dawadii ku habooneedna buugga ugu qoran tahay dhakhtarkana uu la kaashan karaa buugga daryeel iyo daaqsin dhawaan waxaad ku shaacisay baraha bulshada aad ku leedahay maxaad falcelin kala kulantay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka iyo dibadiisa gaar ahaan xoolo dhaqatada bulshada aad bay u falcelisay baahida loo qabo midaan dareemay waxa weeye hal maalin baa waxaan gada konton buug ku dhawaada shakhsi ahaantayda saddexdii beri la soo dhaafay adeertaan ku soo jirno 120 buug baa laga gada taasna waxa weeye yani bulshadeena maanta inay waaqac ay soo fahmayso yani anoo buugii dhawaan soo bandhigaya dadkana waxaan u gada waxa weeye baahi badan baa jirta ay weydiinayaan inay mataqaana ay gaaraan in kana faa'iideystaan barajeyn doona dooleen meelaha ugu badan buugayada laga soo dalbaday waa Baydhabo mataqaana Muqdisho Hargeysa Boosaaso Garowe Soomaalida deegaanka Jigjigayo iyo Gurceel Dhuusamareeb meelo badan ee Soomaalida ay degto baan gaarsiiyay ilaa waxaan gaarsiiyay Sanaag Xirigaw dadka ayaga soo wacay waa inay la soo xiriirayeen wixii tala iyo tusaalaha meesha soo marinay markasta anigu ahamiyadeedu tahay in bulshadeena Soomaaliyeed waa bulsho khayraad cayrin haysto oo ku saabsan xoolaha inay ka faa'iideystaan hadduu alla yiraahdo dhawaana u soo bandhigo dana buuga shanaad lagu soo foolada la yiraahdo dad badan oo ku sugan dalka iyo dibadiisa ayaa laga yaabaa inay xiiseynayaan buugaaga daryeel iyo daaqsin qofkii u baahan hab nuucay ayuu ku heli karaa waxaan u gudbinay hadda xafiisyo jira serviceyo lagu kala gudbiya sidoo kale waxa jira agensiyo meelaha noo jooga oo dhalinyaro ah hadda Hargeysa oo kale Garowe oo kale Boosaaso oo kale Xamar oo kale aan geenaynay iyo meelo ka fogba oo mataqaana diyaaradaha u saaraynay dadka ugu badan haddana soo weydiinayaan laftooda dadka qurbaha jira dadka mataqaana hadda Kenya oo kale Mareykan oo kale Ingiriis oo kale waa nadi weydiinayaan marka waan gaarsiinayna ayagu laftooda dad baa ugu sii dhiibay saaxiibayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaa wareysigii koobnaa oo Dr. Cabdimajid Dirshaduwa aan kala yeelanay
buugga uu qoray daryeel iyo daaqsin aad iyo aad ayaad uga mahad celinaynaa doctoorka adinkana sidoo kale aad baad idinka mahad celinaynaa waqtigeena